وأنتم بخير. يتمنى لكم صياما مقبولا وعيد فطر سعيد. السلام عليكم، عيد وناكسن كسو دوادا channelkeena asxaabta qaliga ah. Fadlan haddaadan ka mid ahayn asxaabta channelka waxaan ka codsanayaa si xushmad leh inaad subscribe u tiraahdo. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa Asli Xasan Cabaade, gabadhii ugu horeysay ee diyaarad tuurisa heer aysan Carabta iyo Afrikaanka kali gaarin xilligaas. haddana xitaa wadankan joogo waxaan ku duulaa diyaaradaha dagaalka F-16. waxay Asli ku dhalatay magaalada Buurabarte sanadkii 1958 wadankaasi Soomaaliya. waxay iskuulka hoose dhexe ku dhamaysatay magaalada ay ku dhalatay, kabacdina waxay u soo wareegtay magaalada Muqdisho, halkaas oo ay si hufan u dhamaystiratay iskuulkii sare. gurigii ay Asli ka deganayd magaalada Muqdisho ayaa bedelay nolosheeda. waxa uuna ku dhawaa xerada militariga ee Afisiyoni, waxayna daawan jirtay dowlatuska militariga iyo diyaaradaha ciidanka oo ka duulaya si joogto ah, taas oo ku beertay hanka nolosheeda bedeli doona oo ah inay duuliye noqoto. waxay Asli la kulantay caqabad ah in aabaheed ka biyo diido inay ku biirto xerada tababarka ciidamada, laakiinse cadaadis dheer iyo iyada oo ka go'nayd inay duuliye noqoto wadankeedana u adeegto ayaa dhalisay in aabaheed uu oggolaado inay ku biirto xerada militariga xilligaas. waxaana ka warhelay markii ay ku biirtay xerada militariga madaxweynihii Soomaaliya xilligaas Maxamed Siyaad Barre, kaas oo ugu yeeray xafiiskiisa kana la taliyay shaqada tan iyo adeegeeda. laakiinse Asli way ku adeegtay go'aankeeda iyo hankeedii. markii ay ka qalin jabisay xeradii militariga waxay ku qaadatay tababaro macadka Mareykanka ee American Airlines Flight Academy, waxa ayna ku biirtay ciidamada cirka Soomaaliya. waxayna Asli tuulisay diyaaradii ugu horeysay 9 Sebtembar 1976. waxayna Asli ka qayb gashay dagaalkii lagu xoreynayay gobolada Soomaalida ee Ogaadeniya oo ay xilligaas haysatay dowladda Itoobiya. Asli waxay ka qayb qaadatay nabadeynta Soomaaliya xilligii burburkii kabacdi, iyada oo huwan astaanta qaranka Soomaaliyeed ayay magaalada Jabuuti ee Carta ka qayb gashay shirkii Carta, waana meesha uu ka raacay magaca Alansida. Asli oo haatan ka haysa diyaaradaha airlineska nooca loo yaqaano Airbus 320 iyo diyaaradaha dagaalka nooca loo yaqaano F-16 ayaa waxay tahay hormuud iyo wado ku dayasho mudan dhammaan gabdhaha Soomaaliyeedna qof ay eegtaan. Asli oo kula talinaysa gabdhaha Soomaaliyeed inay hankooda rumeeyaan wadankoodana difaacaan ayaa waxay leedahay muuqaalkan. waxaan ku baraarujinayaa gabdhaha dhalinyarada inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba ay daafacaan, inay maartay waxbarashada nasiiba runtii aad bay uga horeeyaan ragga. jaamacadaha dibadaha ama dalka gudihiisa ahaada gabdhaha u badan runtii markaan runtii ka hadalno. haddana laakiin waxaan ku baraarujinayaa si ay xagga ciidanka cirka ay uga qayb qaataan, u difaacaan dalkooda, ay cadowga ka difaacaan. taasaan aad ugu baraarujinayaa, sababta rag keliya laguma hadlayn karo. wiilasha way soo dadaaleen, way soo difaaceen, laakiin waxaan u baahannahay maanta gabdhaha xagga cirka hawada markii duulimaad la yiraahdana xagga annaga aad kaga firfircoon raggaan leeyahay, anoon ragga cambaarayn. haddana laakiin runtii markii la hadlo waan kaga adagnahay, sababta insha Allah tacaala waan ka taxadar badannahay. marka waxaan ku baraarujinayaa inay niyadda geliyaan inay duuliyaal noqdaan oo ku dadaalaan xisaabta iyo physics iyo astronomiga, ay marka niyadna ay u hayaan. marka laakiin haddii caafimaadkooda iyo waxbarashadooda ka reeba mooye haddii niyad u hayaan way ka salgaari karaan, wayna noqon karaan insha Allah tacaala. waxaan filayaa muuqaalkan inaad kaga bogatay taariikhda gabadhii ugu horeysay ee duulisa diyaaradda qaaradda Afrika iyo Carabaha oo dhan. waxaan filayaa inay ku noqoto tusaale cad inaad rumayso hankaaga iyo riyadaada. وأنيكو عبد الرحمن الياسيني waxaan idinkaga tagayaa sidaas in nabadgelyo. haddaadan ka mid ahayn asxaabta channelka fadlan nagu soo bir oo subscribe sar. mahadsanid.